Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawada kusoo dhawow Seto Academy magacaygu waa Cabdicasiis Cali Nuur fadlan dad ku cusubtaa channelka subscribe de maanta waxaan ka hadlaynaa haddii Ilaahay yiraahdo operational amplifier introduction kiisa hore ayaan uga soo hadalnay iyo waxa loo isticmaalo iyo qaabku u shaqeeyo maanta waxaan ka hadlaynaa example 5.1 oo ah example-ka koobaad ee operational amplifier waxaana la siiyey operational amplifier sawirkan ku jira circuit-kan operational amplifier ka loo isticmaalay baa waxaa la siiyey warbixintiisa example-ka lagu siiyey kow waxaa la siiyey open loop voltage gain wuxuu la mid yahay 2 times 10 to the power 5 input resistance wuxuu la mid yahay 2 mega ohm ayuu la mid yahay output resistance-giisuna wuxuu la mid yahay 50 ohm intaas waxa waaye warbixinta operational amplifier waxaa lagu dhahay operational amplifier-ka warbixintaas leh ama astaamahaas leh ayaa waxaa loo isticmaalay figure-ka ama sawirka 5.6a macnaha sawirkaana loo isticmaalay intaasuu kuu sheegaya waxaa raadisaha lagu dhahay closed loop gain oo lagu helo v output oo loo qeybshay v input ama VO oo loo qeybshay VS waxaa laga wadaa input-ka iyo output-ka waxaa u dhaxeeya 20k ohm ayaa u dhaxeysa way isku xirtaa marka relationship-kaas ka dhaxeeya closed loop gain-kaas ka dhaxeeya soo hel ayaa lagu dhahay sidoo kale waxaa soo heshaha lagu dhahay current-ga maraya 20k ohm markii ay la mid tahay VS 2 volt warbixinta lagu siiyey intaas waa marka haddii aad soo daawatay cashirka horeeye introduction ka ahay halkan ayaan soo saari doonaa haddaad daawo cashirkaas waxaan kusoo sharaxnay internal construction of operational amplifier marka si aan qiimahan nala siiyey u fahamno waxaan u furfurnay sawirka labaad 5.6b ayaan u furfurnay oo ah internal construction of operational amplifier halkan sawirkan koobaad oo ah sidoo kale waxaa nagula siiyey input-ka iyo operational amplifier-ka inta u dhaxeysa waxaana la siiyey 10 kilo ohm ayaana la siiyey sidaa darteed halkan oo ah bin 2 halkan oo ah bin 3 halkan oo ah bin 6 macnaha output inverting input iyo non inverting input intaas marka non inverting input waxba lama siin hadda circuit-ka waxaa noogala dhigay ground ayaa laga dhigay internal construction-kiisu marka intaan u ahaa haddaa xasuusatid haddaad xasuusana cashirkaa soo daawo intaan u ahaa internal construction-kiisa si isu keenayso fiiri marka internal construction-kiisa open loop gain waa a open loop gain 2 times 10 to the power 5 eedaas waay output resistance-na waa tan aha waa 50 waana la siiyey sidoo kale input resistance-na waa tan 2 mega ohm marka information-kii xagga nagala siiyey iyo information-kan gudihiisa aan hadda ugu sameynay waa same inta aanan shaqada u gelin aan example ka shaqayn waa inaan fahamno table-kan hoose open loop gain mar walba eeda waxay u dhaxeysaa tirada lagu siiyo haddii 2 lagu siiyo haddii 3 lagu siiyo haddii 5 lagu siiyo times 10 to the power 5 ilaa to the power 8 ay u dhaxeysaa macnaha waxay u dhaxeysaa intaan ay ranjigan ay ku jirtaa waa markii la joogo non ideal ama practical la joogo meeshan waa practically halkana waxaa waaye ideally waay marka practically marka la joogo intaanay u dhaxeysaa laakiin ideally waa infinity laga soo qaataa macnaha wax la xadidi karo infinity waaye ayaa la dhahaa sidoo kale input resistance-igu waxaa la yidhahdaa iyadana 5 times 10 power 5 ilaa waxay u dhaxeysaa 10 power 13 sidoo kale marka ideally la joogo annaga waxaan ka soo qaadan doonaa
hadhowt markaan gudaha u galno baalka oo operational amplifier inverted non inverted markaan ka shaqaynayno waxaan u qaadan doonaa ideally oo waxaan u qaadan doonaa infinite waayaan dhihi doonaa input resistancegeeda waa tan halkan sidoo kale output resistancega waxaan u qaadan doonaa 10 sida practically waxaa waaye 10 ilaa 100 waayo ohm laakiin anagu ideally waxaan u qaadan doonaa markaan ka shaqaynayno maadaama aan hadda practical wadin 0 ohm ayaan u qaadan doonaa supply voltageka operational amplifierna waa 5 volt ilaa 24 volt intaas marka jadwalkan saas ula soco haddii aan shaqada u guda galno shaqada ayaan u guda gelaynaa waxaa lagu dhahay maadaama halkan aad joogtid waxaa isticmaalaysaa neural analysis hadda waa furfurtay circuit caadihu noqday operational amplifier oo dhan waa la furfuray circuit caadi laga dhigay kan ka qaad si aad si fiican ugu fahamtid marka waxaa laga dhigay circuit caadi laga dhigay halkan istaag V1 halkaas ay ku qoran tahay halkan ay V1 ku qoran tahay ayaa wuxuu ku yahay node 1 halkaana wuxuu ku yahay VO ay ku qoran tahana node 2 so haddii kale waxaa ka dhigataa halkan node 1 ka dhigo halkaana node O oo ku yiri halkaa markaa maraysid currentiga soo gelaya sourcega ka imaanaya nodeka si looga shaqeynaya waa taqaana currentiga soo gelaya wuxuu lamid yahay currenti ka baxay sidaa darteed waxaan dhahaynaa halkaa markaan joogno node 1 aan joogno at node 1 aan dhahaynaa node 1 markaan joogno waxaan dhahaynaa Vs minus V1 loo qaybshay 10k marka kda dhan maadaama kda dhan waa ka tegaya hadhowt maadaama kda dhan isku mid tahay waxay la mid tahay tan ka baxaysa oo lamid ah V1 minus V0 oo loo qaybshay 20 oo lagu daray V1 markii laga soo tago qaybtan ground ay ku xiran tahay V1 oo loo qaybshay 2000 way aan 2000 uga dhigay halkan waa 20 mega ohm maadaama kuwan ay kiilo yihiin baan kiilo kala mid dhiga saddex macnaha 6 eber waaye waxaan iska tuuray 3 eber maadaama kuwaanu ay ahaayeen 10 kiilo ohm ay ahaayeen kiiladiina aan kasoo tegey saddexdaas eber iyo kiilas waa isku dhigmaan marka waan kasoo tegey sidaasaan u qaatay 2000 saddexdii eber oo kale ayaan soo qaatay intaan ka shaqeey marka waxaan dhahaynaa Vs minus V1 loo qaybshay 10 waxay la mid tahay qaybtan LCM u qaado macnaha 2000 ah 2000 haddaa u qaadatid halkan u qaybi waxaa kasoo baxaysa 100 marka 100 V1 minus 100 V0 plus tanna waxay noqonaysaa siday usoo laabanaysaa V1 ay noqonaysaa kadib waxaan sameynayaa Vs minus V1 10 is equal labadan V1 ka isku dar 100 1 V1 minus 100 V0 divided by 2000 kadib cross multiplication iskugu dhifo waxay noqonaysaa 2000 Vs minus 2000 V1 equal haddii 10 lagu dhifto 101 waxay noqonaysaa 1010 V1 minus 1000 V0 intaas markaa soo saartid wixii isleh labadan
isku dhinac mari labadaasna isku dhinac mari labadan haddii isku dhinac la marsho tan balaas yaxaa ku tegaysaa waxay noqonaysaa 3010 v1 oo la mid ah tanna xagga soo mari oo la mid ah 2000 vs plus 1000 v0 intaa markay kuu soo baxdo meel walba waxaa u qaybinaysaa saa v1 u heshid v1 waxaa la mid tahay haddii meeshan loo qaybsho meel walba waxaa u qaybsaa 3000 marka 1000 way isla baxayaan waxay noqonaysaa 2 vs plus v0 divided by 3.1 saasay noqonaysaa intan waxaa soo saartay equation 1 node 1 aa soo saartay intan equation 1 marka intaad soo saartay waxaad tegaysaa haddana node o at node o okay waxaad dhahaysaa v1 minus v0 divided by 20 equal v0 minus avd divided by 50 oo ah v1 v0 v0 vad marka inta 50 u qaybi 1 inta 50 u qaybi 0.4 marka 1 kana xagan ku dhifanaysaa waxaa soo baxaysa v1 minus v0 oo la mid ah 0.4 na xaga ku dhifo marka waxay noqonaysaa 0.4 oo lagu dhiftay v0 halkaana eena waxaan haysanay halkaana haysanay 2 times 10 to the power 5 marka minus 5 eber vd saanay noqonaysaa kadib marka halkaas maraysid waxaad dhahaysaa v1 minus v0 waxay kula mid tahay 0.4 halkaa markaa maraysid vd waxay la mid tahay v1 marka booskeeda ku bedelaysa waxaad dhahaysaa v0 minus 2 5 eber v1 minus v1 marka inta plusay noqonaysaa halkan plusay noqonaysaa v1 ilaa minus markay isku dhacaan plusaa soo baxaysa intaas markaa soo saartid waxaa ka dhigaysaa weli waa wadaa qaybtana weli wadaa v1 minus v0 waxay kula mid noqonaysaa 0.4 v0 plus 0.4 markaa ku dhifatid qaybtaas waxaa soo baxaysa 80,000 v1 intaasaa ka soo baxda sax inta markay ka soo baxdo waxaad dhahaysaa haddaytu v1 waxaan soo saarnay equation 1 tag meel walba oo v1 ah waxaa ku bedelanaysaa equationkan ku bedelanaysaa equationkan aa ku bedelanaysaa marka waxaad dhahaysaa 2 vs minus plus plus v0 divided by 3.1 minus v0 equal 0.4 v0 plus 80,000
2vs plus v0 divided by 3.1. intaas markaa maraysid halkan 3.1 LCM u qaado marka waxay noqonaysaa 2vs plus v0 minus 3.1 v0 divided by 3.1 is equal qaybtaana LCM u qaado 3.1 ayadana 1.24 v0 plus tanna kor ku soo garaac 16 afar eberaad vs plus 8 afar eberaad v0 baa waxaa dhahaysaa kan iyo kan isla cancel meeshan waxaa ku soo hartay 2vs plus vo labadaana kala jar waxaa u soo qoraysaa labadaana kala jar minus 2.1 vo is equal labadaana isku dar 8 0 0 0 1.24 v0 plus 1 16 vs halkaa markaa maraysid waxaa rabtaa labadooda mid wixii vsna gooni mari wixii vona gooni mari vo soo qaad halkan keen vs taasna qaad halkaas keen vs taas soo qaad halkaas keen waxay noqonaysaa vs way kala jarmaysaa waxay noqonaysaa 160,000 minus 2 oo la mid ah minus 159998 vs oo kuula mid ah tanna way ku darsamaysaa 8 0 0 0 3.5 v0 haddii aad isku qaybisid marka labadan haddaad isku qaybisid oo aad tirahdid vs by v0 qiimahoodana waa isu qaybsamayaan oo waxay noqonaysaa intan oo loo qaybshay 8 0 0 intan oo loo qaybshay intaanay noqonaysaa 0 0 3.5 oo la mid ah minus 1.9998 intan waxaa kuula mid ah closed loop gain relationshipka ka dhexeeya v input iyo v output waa intan kuula mid ah marka su-aashii koowaad labada su-aashii koowaad oo lagu weydiiyey baa soo saarta adigoo maraya processkan
wuu dhib badan yahay, laakiin haddii aad mesh analysis iyo nodal analysis aad taqaanay wax ay kula yihiin malaha, waayo halkan anigu markaan marsiinayo oo intaan soo saaro haddii aan kaaga haro waa shaqay kartaa. Sidoo kale haddii markii intan aan soo saaray aan kaaga haro processka wuu kala duwnaan karaa, adigu wadada maraysa iyo anigu wadada marayo isku mid ma noqonayaan. Intaas markaan soo saaro oo aan tan soo saaro haddii aan rabo waxaa la dhahay when vs meeshan waa VO iyo VS macnaha VS ayaa la qaybinaya. Marka halkaa inaan markaa marayo oo aan halkaa marayo haddii aan rabo inaan soo saaro VO inaan soo saaro haddaan rabo VO hadday lamid tahay 2 intan oo lagu dhiftay 2 ay lamid noqonaysaa VO soo maha. Marka VO waxay lamid noqonaysaa haddii intan 2 lagu dhifto waxay lamid noqonaysaa VO waxay lamid noqonaysaa minus 3.9997 intaa ay lamid noqonaysaa. waayo minuskan u socdaa, minuskan wuxuu u socdaa inputka wuxuu ahay inverting input, outputku marka muxuu noqonaya minus uu noqonaya. taasi hore aan soo sharaxnay, ayadana hore aan soo sharaxnay. Marka haddii aan rabno inaan soo saarno currentiga halkan maraya oo 20ga maraya, dee current waxaa lagu helaa waa iska fududa. currentiga waxaa lagu helaa v output oo loo qeybshay resistancega ay marayso oo lamid ah 3-3.9997 loo qeybshay 20 oo resistancega 20,000 waaye. 1000keeda raacinaysaa 3 eber raacinaysaa waxay kula mid noqonaysaa 0.19 milliampere answer. Marka labadii answer oo aniga laga rabay midna waa tana. Marka intaasu waa example-kan